kulanto wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dalka media qodobada maanta ugu dooroon waxaa kamid ah xildhibaan iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo ku xayiran garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi kadib markii loo diiday dalku galka wadanka Soomaaliland oo jawaab adag ka bixisay hadalkii xalimiyeey ee ahaa doorashada 2020 waxa ay ka dhacaysaa magaalada Hargeysa. ciidamada ammaanka oo Muqdisho ku qabtay rag weerar ku qaaday bar control ee ciidamada dawladda ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal dalka media balse aan ku bilaabo dhanka dawladda Kenya. xildhibaan iyo wasiir ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ku xayiran garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya sida ay sheegayaan wararka. wasiir ku-xigeenka biyaha iyo korontada Cismaan Libaax, Senator Simsim Daahir iyo Senator Ilyas Xasan Cali ayaa ku sugan garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta kadib markii loo diiday dalku galka wadankaasi. warar hoose ayaa waxay sheegayaan in mas'uuliyiintan ay hadda ku xayir yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi maadaama aysan jirin diyaarad xali ka soo bixisay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta oo soo aadaysa magaalada Muqdisho kadibna loo diiday inay gudaha u galaan wadanka Kenya. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii dawladda Kenya diiday dalku galka ama fiisaha garoonka diyaaradaha loogu dhufanayo baasaboorada ay qaataan xildhibaanada iyo wasiirada ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. mas'uuliyiintan ayaan wadan baasabooro kale si ay ugu baxsadaan wasiirkii ka horeeyay maanta ay arrintan ku dhacday oo saameeyay waxaana la sheegay in laga reebay rakaabkii kale oo la socday. dawladda Kenya ayaa maanta soo rogtay amar cusub oo dhanka socdalka ah kuwaasi oo halis ku ah siyasiyinta iyo mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya. weli ma jirto wax war oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya oo arrintan ku saabsan, sidoo kalena ma jirto war ka soo baxay mas'uuliyiinta ay dhibaatadan ku dhacday. dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya ayaa waxay isku haystaan xuduudda badda waxaana loo maleynayaa in hadalkan ka soo baxay dawladda Kenya oo lagu joojiyay dalku galka wadankaasi ama ay ku xayirtay mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda Soomaaliya garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi kadib markii ay u diiday inay gudaha u galaan wadankaasi. hadalkan ka soo baxay dawladda Kenya ayaa wuxuu salka ku hayaa iska qabsiga khilaafka u dhaxeeya dawladda Kenya iyo Soomaaliya ku aadan badda Soomaaliya ama badda xuduudda ku taala, iyadoo dawladda Kenya dhowr mar amar saameynaya ay ku soo rogtay wadanka Soomaaliya. xukuumadda Somaliland oo hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabtay hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha doorashooyinka Soomaaliya xalimiyeey. marwa xalimiyeey ayaa sheegtay in deegaanada Somaliland ay ka qabsoomayso doorashada 2020 oo ay ka mid tahay maamul goboleedyada ee doorashada ay ka dhacayso. waxay sidoo kale sheegtay in loo baahan yahay inay soo diiwaangeliyaan magacyada xubnaha doorashadaasi ugu qaybgalaya maamulka Somaliland. intaasi kadib wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland Maxamed Muuse Diriye oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa si adag ugu jawaabay hadalkaasi ka soo yeeray gudoomiyaha doorashooyinka Soomaaliya. gabadha gudoomiyaha komishinka doorashooyinka u ah Soomaaliya waxay tiri musharaxiinta Somaliland ee doorashada Soomaaliya ka qaybgalaya liiskooda soo gudbiyaan. waxaa la yaab leh in ilaa iyo halkaasi nolol soo dalaal tago, ayuu yiri wasiirka warfaafinta Somaliland. waxaan leeyahay Somaliland iska daayo Hirshabelle oo jawhar caasimad u tahay ayaan doorashada ka dhacayn Muqdisho gudaheeda ayaan sidoo kale doorashada aad ka qaban karin. waxaana maanta ay tiri musharaxiinta Somaliland hay soo diiwaangeliyaan si ay doorashada madaxtinimada Soomaaliya uga qayb qaataan. hadalka wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka Somaliland ayaa wax u imaanaya iyadoo uu hadal ka soo yeeray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya Cismaan xalimiyeey ay tiri in doorashada 2020 ay ka dhacayso maamulka Somaliland isla markaana ay soo diiwaangeliyaan madaxda ugu qaybgalaysa. taliska ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa ka hadlay bangacmeed xali lagu weeraray goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Muqdisho. taliska ciidamada booliiska ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay qabteen xubno lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weerar bangacmeed oo ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu weeraray ciidamada ammaanka. taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Zakiye Xuseen ayaa shaacisay in ciidamada ay qabteen ruux bangacmeed ku weeraray xarun ciidamada booliiska ay ku sugnaayeen oo ku taala xaafadda Taleex ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. waxay sheegtay in dadka la qabtay ay ahaayeen kuwa ku eedeysan inay tuureen bangacmeedyada xalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
sidoo kale waxay ciidamada qabteen ruux bangacmeed ku weeraray suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. labada bangacmeed ayay Zakiye ku sheegtay inaysan geysan wax khasaare ah. ciidamada ammaanka ayaa dhagarqabo gacanta ku soo dhigay oo bangacmeed ku tuuray xaafadda Taleex ee degmada Hodan. sidoo kalena waxay ku guuleysteen inay soo qabtaan dhagarqabo kale oo isna xalay ku tuuray bangacmeed suuqa bakaaraha ee degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir. labada fal wax khasaare kama dhalan ayay tiri Taliye Zakiye. habeen hore ayay ahayd markii magaalada Muqdisho qarax xoogan ka dhacay, kaasi oo ka dhacay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya, isla markaana ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay. ammaanka magaalada Muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyay ahaa mid faraha ka sii baxay kadib markii dililka ay geysanayaan kooxaha hubeysan iyo sidoo kale qaraxyada loo fiiriyo, iyadoona bilooyinkii ugu dambeeyay ammaanka magaalada Muqdisho waxa mid soo hagaagayo oo ciidamada ammaanka ay baaritaan xoogan ka sameynayaan xaafadaha ka tirsan magaalada Muqdisho. laakiin booliiska Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku guuleysanayay inay gacanta ku soo dhigaan kooxaha ka dambeeya waxyaabaha lidii ku ah amniga, iyadoona dhowrkii isbuuc la soo dhaafay ay gacanta ku soo dhigayeen dadkii ka dambeeyay waxyaabaha lidii ku ah amniga. xalay oo dambeysay ciidamada booliiska waxay gacanta ku soo dhigeen 2 nin oo ka dambeysay bangacmeedyo lagu weeraray fariisimo ciidamada dawladda ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho. habeen hore qarax ka dhacay magaalada Muqdisho, gaarigii qaraxay ninkii watay gacanta ku soo dhigeen ilaa 2 kale, kuwaasi oo booliiska Soomaaliya ay sheegeen inay ka dambeeyeen qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanaysaan dalka media. intaan warkan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.